بريا كورة بريا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وابغداد وكمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن داوديال meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay geeyiga Soomaaliya wararka degdega oo aan idin hayo waxa qayb ka noqon doona ciidamo ka tirsan beesha Ciise oo wata gaadiidka dagaalka iyo qoryaha doordooriga u dhaca ayaa saaka aroortii hore waxay ka baxeen Saylac waxayna ku wajahan yihiin magaalada Boorama. Suldaankii guud ee beesha Samaroon waxa la soo warinayaa in uu ka baxay magaalada dagaal laga cabsi qaba inay magaaladu gasho iyo faahfaahinta ayaan ku soo gudbin doonaa. Waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa ciidanka Somaliland oo heegan buuxa galay iyo amarro lagu soo rogay salaadiinta beesha Ciise ee ku sugan magaalada Boorama. Haddaba amarradaasi maxay yihiin iyana waan kula wadaagi doonaa. Waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda jiidaha Buqdharkayn iyo sidoo kale aaga magaalada Buuhoodle iyo dagaal laga cabsi qaba inuu halkaasi ka dhaco. Qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada. Haddii tahay markii kugu horeysayna ku soo biri daraja media waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno. Sida u aragtaa xiisadda ka dhex aloosan Samaroon iyo Ciise sidee loo xallin karaa? Bal aragtidaada aan dhageysano qaybta commentiga inoogu reeb. waxaan ku bilaabayaa ciidamo ka tirsan beesha Ciise oo wata dabaabaadka qoryaha doordooriga u dhaca iyo gaadiid dagaal ayaa saaka hiirtii hore waxay ka baxeen magaalada Saylac oo ka tirsan gobolka Awdal waxayna ku wajahan yihiin magaalada Boorama. Suldaankii guud ee beesha Samaroon ayaa isna la soo warinayaa inuu saaka ku dhawaad hal saacadood ka hor uu ka baxay magaalada isagoo aaday dhinacaas iyo galbeedka magaalada Boorama. haddaba beesha Ciise ma waxay qaadatay go'aankii ugu dambeeyay oo ay ku weerarayso magaalada Boorama maxaa socda? xalay xilli dambe dabcan waxaa dhacay kulan saacado badan qaatay oo ay yeesheen saraakiisha ugu sarsareysa dhanka ciidamada beesha Ciise. dabcan kulamada bahda warbaahintu dibajoog ayay ka ahayd waxaana kulamada diiradda lagu saaray sida ay xogaha iyo wararku tilmaamayaan qodobo waaweyn oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga. in beesha Ciise ay horta soo cishato deegaanada ka maqan ee ku jira xeerka buugga Ciise, in beesha Ciise ay qaado tallaabooyin ka dhan ah beesha Samaroon, in degdeg xal looga gaaro shaqaaqooyinka ka taagan deegaanada kulaala xeebaha aaga lagu haye iyo qodobo kale ayaa dabcan shirkaasi looga hadlay. intaa kadibna sargaal guud oo la sheegay inuu Jabuuti dhawaan ka yimid ugaaska guud ee beesha Ciisena uu la kulmay ayaa tala iyo tusaale waxa uu siinayay ciidankii iyo saraakiishii uu la kulmay isagoo sheegay in horta la baqdin geliyo beesha Samaroon oo lagu go'doomiyo magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. heer ugaaskii ama suldaankii guud ee beesha Samaroon uu ka baxo magaalada Boorama ayay xaaladu gaartay sida ay khubarada iyo dadka arrimaha la socda ay tilmaamayaan. tanna dabcan waxaa loo arkaa xataa ififaalo fur colaadeed oo dabcan dhex mari kara beelaha daris wadaaga ah oo wadaaga ah arigana aan kala cishan ay Samaroon iyo sidoo kale Ciise iyadoo oo dhowr jeer madaxweyne Ciro lagu eedeeyay inuu ka gaabiyay xal u helidda qodobada lagu muransan yahay ee hadda ka taagan gobolka Awdal sida ay khubaradu aaminsan yihiin. saraakiil sarsare oo ka tirsan beesha Ciise qaarkood oo aan goordhow la hadlay waxay sheegeen in ay si weyn ula yaaban yihiin ficilada foosha xun ee ka imaanaya dhinacyo kale kuwaas oo la sheegay inay xaaladda dab kale sii geliyeen. tusaale ahaan ugaaska guud ee beesha Samaroon ugaaska guud ee beesha Ciise ayaa dhawaan la sheegay in uu si cad u diiday wax heshiisa isagoo sheegay in gardarrada dulmiga iyo sidoo kale amarku taagleenta ka imaanaysa beesha Samaroon la tusi doono waxa ay mudan yihiin, yacni in dagaal lagu qaadi doono. dabcan ayay u eg tahay hadalka si kale haddaan u dhigo. dabcan arrinta waxaa la sheegay inay gaartay meeshii ugu xumayd iyadoo oo markii dambe odayaal isxilqaamay oo ka socday dowlad deegaanka ay damceen inay xaaladan qaboojiyaan laakiin ugaaska guud ee beesha Ciise uu diiday warkaasi. hadda ciidankan waxaa la sheegay inay joogaan deegaan 72 kiiloomitir kaga beegan dhinaca koonfur magaalada Ceelgaal. saacad walba ayayna geli karaan Boorama ama ay qashqashaadi karaan ama xataa ay u dhawaan karaan. dabcan xataa haddii ay u dhawaadaan ciidanka beesha Ciise aaga magaalada Boorama dabcan tan waa dharbaaxo xun
oo ku dhacday beesha tabarta daran ee la yiraahdo Samaroon oo suldaankii beeshaba uu ka cararay magaalada la yiraahdo Boorame ee xarunta gobolka Awdal dabcan suldaanka iyo salaadiinta kale ee beesha Samaroon ayaa dhawaan si weyn loogu eedeeyay inay ku lug leeyihiin arrimo siyaasadeed iyo in ay doonayaan in la isku horkeeno beelaha walaalaha ah Ciisaha iyo Samaroonka odayga hogaamiye beesha Samaroon ayaa dabcan tiro dhowr jeer sidaas oo kale lagu eedeeyay in uusan si sax ah uga jawaabin dhacdooyin kala duwan oo la sheegay inay darafyo kale ka yimaadeen kuwaas oo la sheegay xataa in ay xaaladda dab kale ku sii shideen dadka walaalaha ah oo wadaaga ah ee wada dhashay ee Ciise iyo Samaroon ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in xaaladooda la qaboojin karo oo wada hadal iyo wada xaajood lagu dhameyn karo laakiin ay jiraan siyaasiyiin wali hunguri uu kaga jiro in uu dagaal ka dhex qarxo Ciisaha iyo sidoo kale Samaroonka si halkaasi maamul loogu sameeyo la yiraahdo Awdal State madaxweynaha dawladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa laftirkiisa la soo warinayaa inuu juhdi xoog iyo dhaqaalaha ku bixinayo sidii loo soo afjari lahaa dandaansiga beesha Samaroon isagoo beeshiisa Ciise dabcan taageeraya laakiin ciidamadan hadda la leeyahay waa ay ka gudbeen xuduuda waa dabcan ciidamo Djibouti lagu soo tababaray haddaad xasuusataan 3 maalmood ka hor ayaan idin sheegay in sargaal sare oo ka socda militariga Djibouti uu tagay magaalada Saylac oo uu la kulmay ugaaska guud ee beesha Ciise ka hor intuusan halkaasi ka bixin mar kale waxaa la sheegay inay kulmeen ugaaska guud ee beesha Ciise iyo sidoo kale taliyaha militariga wadanka Djibouti dabcan qodobadii laga wada hadlay waxa ay ahaayeen kuwa si weyn u faahfaahinaya waxyaabaha la isku hayo iyo in runta loo dhaadhaco oo laga run sheego waxyaabihii hore la isku hayay iyo waxyaabaha hadda la isku hayo iyo in xal laga gaari karo ugu dambeyn waxa ay dadka deegaanku soo wariyeen in saaka aroortii hore ay ku baraarugeen ciidamadan tirabeelka ah ee andameynayaasha iyo waaraadada u badan oo askar marya calas ah ay saaran yihiin kuwaas oo la sheegay in ay xuduuda ka talaabeen lacalla hadiiba ay duulaan qaadaan tanina waxay noqonaysaa san hore idinku sheegay in hadalkii ugaaska guud ee beesha Ciise uu noqday mid sax ah isla markaana uu magaaladii ka cararay ugaaskii guud ee beesha Samaroon oo la leeyahay hadda wuxuu ku sugan yahay banaanka magaalada odayaal dawlad deegaanka dhawaan ka yimid ayaa waxay tageen magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Cirre ayaa la kulmeen dabcan qodobadii laga wada hadlay waxa ku jiray in xeerka buugga Ciise la ogolaado laakiin marka hore laga wada hadlo in si hoose loo xaliyo qodobada ku jira buugga oo si hoose loo fiiriyo waxa sidaas si lamid jiray aragtiyo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah odayaal dhaqameed kale kuwaas oo sheegay in xaaladan la qaboojin karo oo wada hadal iyo wada xaajood xaaladda lagu dhameyn karo laakiin dadka arrimaha la socda sidoo kale waxay leeyihiin dhammaan qodobadaasi marka laga yimaado waxa jira aragtiyo kale oo la xiriira in si degdeg ah xal looga gaaro waxyaabaha la isku hayo si walbaba ha ahaatee haddii hadda aan xal loo helin dhaqdhaqaaqyada socda dad badan waxay aaminsan yihiin inay xaaladdu faraha ka bixi doonto markana Boorama aan ku soo laabtay Somaliland ayaa digniin kama dambaysa waxa ay dul dhigtay odayaasha dhaqanka beesha Ciise ee ku sugan gudaha Boorama dabcan waxa jira tuhun la xiriira in beesha Ciise ay abaabulayso mudaharaad ka dhaca magaalada Boorama hoteelada ku yaala magaalada Boorama ayaa la soo warinayaa in la dul dhigay amar ah in aysan qaabili karin odayaasha beesha Ciise iyo kuwa Samaroon hadii ay dabcan qabanayaan shirkaasina ay Somaliland la socoto dabcan waa dharbaaxa inaba aan caadi ahayn oo ku dhacday cid walba oo doonaysay in ay qayb ka noqoto xaaladaha hadda taagan oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladani xaalad kale u dhiibayso sidaas si lamid ah dadka arrimaha la socda waxay leeyihiin waa in si degdeg ah ay Somaliland u xaliso qodobada la isku hayo oo waliba Ciisaha iyo Samaroonku ay isku hayaan si wada hadal iyo wada xaajood arinta loogu dhameeyo sidaas si lamid ah in hoteeladii amaro lagu soo rogo dabcan waxay ka hor imaanaysaa dastuurka Somaliland
oo dabcan si weyn u qeexaya in xuriyatul qowlka iyo dhaliisha dowladda la soo bandhigi kara xilli walba laakiin waxaad moodaa in qodobkaasi ay ka tallaabeen dhinacyadii loo igmaday oo ay qaadayaan mar kale tallaabooyin kale oo dabcan xaaladda dab kale kusii shidaya iyadoo oo dadka arrimaha la socdana ay leeyihiin waa in somalilan ay fasaxdo shirarkii jaraa'id ee lagu qaban lahaa magaalooyinka waaweyn ee somalilan si dowladda loo tuso khaladaadkeeda iyo dhaliilaha ay leedahay qodobkeena ugu dambeeyana wuxuu noqonayaa wararka laga helayo aagga buuhoodle ilaa buqdharkayn ayaa waxay tilmaamayaan in halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhanka ciidamada ah 24 saac lasoo dhaafay si weyn ayaa loo dareemay dhaqdhaqaaqyada xoogga leh ee ka socda halkaasi laba sargaal oo ka tirsan ciidanka militariga Somaliland ayaa waxay tilmaameen inaysan iyagu xilligan raalli ka ahayn oo aysan dooneen inay qaadaan duulaan laakiin haddii laga fursan waayo duulaanka ay dabcan qaadi doonaan xogaha aan helayno ayaa waxay tilmaamayaan in saraakiishu ay sidoo kale tilmaameen in dhowrkii saac la soo dhaafay magaalada buqdharkayn ilaa aagga buuhoodle dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda ay sare mareen sababta ugu weyn ilaa hadda lama oga laakiin xogaha aan helayno ayaa waxay tilmaamayaan in tani ay tahay fariintii ugu dambeysay oo Somaliland ay u dirayso cid walba oo doonaysa in ay ku soo xadgudubto deegaanadooda sargaal sare wuxuu tilmaamay in ay mas'uuliyadda iyagu qaadanayaan oo aysan ogolaan doonin in arbushaado iyo qashqashaad laga sameeyo buuhoodle beesha maxamuud garaad ee degta magaalada buuhoodle ayaa sidaas si lamida la soo warinayaa inay iyaguna qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo xaaladda ka sii daraysa maadaama dhowaan aan dila wadaagay in garaad cabdulaahi garaad saleebaan garaadka guud ee beesha ciise uu si cad u sheegay waa garaadka guud ee beesha maxamuud garaad aan dhehe inuu si cad u sheegay inay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo xaaladda dab kale kusii shidaya ciidanka Puntland ayuu ku eedeeyay in ay wadaan arbushaad qashqashaad iyo sidoo kale xasiloon darro inay geliyaan gobolka isagoo sheegay inaysan taasi ka yeeli doonin wixii intaa ka dambeeyay ciidanka la yiraahdo BMBF ee mararka qaar lagu arko gobolka Sool ilaa gobolka Sanaag ayaa laftirkooda la soo warinayaa in la si qarsoodi ah loo geeyay buuhoodle waana waxa ay beesha maxamuud garaad ka cararayso oo ku saabsan in aan la aqbali doonin wax walba oo ku saabsan xaaladaha halkaasi ka jira dadka arrimaha la socda sidoo kale waxay leeyihiin toddobaadyadii la soo dhaafay waa ay jirtay aragtida la xiriirta in beeluhu ay isku dhici karaan oo ay xaaladdu faraha ka bixi karto beesha maxamuud garaad ee degta howdka gobolka Cayn ilaa aagga buuhoodle ayay dad badan aaminsan yihiin inay tahay beesha kaliya ee hadda ka hortagi karta dulmiga iyo daandaansiga ka imaanaya dhinacyadaasi iyada oo dadka arrimaha la socdana ay leeyihiin beesha maxamuud garaad waa inay qaado tallaabooyin dheeraad ah oo lagaga hortagayo ficilada ka imaanaya ciidanka dowlad goboleedka Puntland aagga gobolka Sool magaalada Baran waa aagga gobolka Sanaag aandahay magaalada Baran iyo deegaanada hoos yimaada oo Sanaag ah sidaas lamida ciidamada la yiraahdo BMBF iyo ciidamada maleeshiyaad ah ayaa lagu tababarayaa waxaana ciidamadaasi dad badan ay aaminsan yihiin inay yihiin ciidankii loogu talagalay inay dilaan ama weeraraan garaadada waqooyi bari waase ay ku baraarugsan yihiin waxayna rabaan inay iska celiyaan oo ay iska difaacaan cid walba oo xilligan doonaysa inay daandaansi ku sameeyso deegaanadooda si walbaba ha ahaatee xaaladaha halkaasi ka jira ayay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda dab kale ku sii shidi karaan waxaana sidaas si lamida toddobaadyadii la soo dhaafay si weyn loo dareemay culeysyada amni iyo midka cabsi ee ka jirta gobolka Sanaag agal deegaanka la yiraahdo Yubbe oo hoostaga magaalada Ceergaabo oo Sanaag ah ciidamo ay Puntland ku tababartay magaalooyinka Dhahar iyo Baranna ciidamo ay Puntland ku tababartay dadka arrimaha la socdana waxay leeyihiin waqooyi bari inta ay ku mashquulsan yihiin arrimaha la xiriira caleemasaarka iyo waxyaabaha ku tacalluqa ayaa dhexdooda laga faa'iideysanaya oo dabcan xilligan la sameynaya wax walba oo ku aadan arrimaha ciidamada sidaas si lamida madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa toddobaadkii la soo dhaafay la sheegay in uu u sheegay saraakiil ka tirsan BMBF in ay tagaan buuhoodle oo si qarsoodi uga howlgalaan sidaas si lamida ay tagaan deegaan walba iyaga looga baahdo taa oo dabcan loo arkay inay tahay
falsafadii ugu dambeysay oo uu dani doonayo ugaaska guud ee ciise ugaas mustafa oo gebi ahaanba ergadii garaad kulmiye ka diiday dalabkii ay soo fareen beelweynta gadabursi iyo ugaaska gadabursi ee ahaa in ugaas mustafa ku dhawaaqo in uu ka noqday colaadii iyo dagaaladii hore ugu dhawaaqay islamarkaana uu ku dhawaaqo in uu nabad qaatay waxaa ugaas mustafa gebi ahaanba ergadii garaad kulmiye ka diiday qodobkaasi ugaaska ciise oo gebi ahaanba ergadii ka diiday dalabkii ay ula tagtay ee ahaa in uu ku dhawaaqo in uu nabadii qaatay balse dalabkaasi ergadii ula tagtay gaashaanka ayaa uu dhowray gebi ahaanna waa uu ka diiday dalabkaasi taasi oo ahayd shuruudii ay beelaha Samarro ku xidheen ergadii ugu tagtay dhowaan gobolkaasi awdal warbixin amuurahaas ku saabsan ayaa daawadaya midhayaa balse marka hore like share soo follow gareebijkeeneen wad maatintiin aynu ku bilowno ugaaska guud ee beesha ciise ayaa ku gacan sayray dalabkii dhexdhexaadintii ay ula tageen ergadii uu hogaaminayay garaad kulmiye garaad maxamed garaad bool